ururka dhalinyarada gobolka Banaadir ayaa maanta kulan ay ku yeesheen xarunta dhalinyarada degmada Shangaani ku taageeray xukuumadda cusub oo soo dhisay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo ay baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya shalay siiyeen codka kalsoonida. waxaa ka soo qayb galay dhammaan xubnaha ururka dhalinyarada degmooyinka gobolka Banaadir waxaana sidoo kale lagu muujiyay in dhalinyarada gobolka ay doorka ka qaataan xoojinta dowladnimada. qaar ka mid ah gudoomiyaasha dhalinyarada degmooyinka gobolka Banaadir oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in garab taagayeen xukuumadda cusub isla markaana ay la shaqeynayaan. waxaan dhammaantiin isku duubnaa leenahay xukuumadda dan qaran aad baan u taageeraynaa waan la shaqeynaa waa xukuumad dan qaran ah oo haddana dan dhalinyaro ah macnaha dhalinyarada aad u taageereen marka aad u mahadsantihiin dhammaantiin waana ku mahadsantihiin kulankiina soo ajiibka quruxda badan leh inaad taageero buuxda aan u fidino xukuumadda dan qaran oo golada wasiirada inta badan ay yihiin dhalinyaro maadaama sanadkan uu yahay sanadka dhalinyarada si wanaagsan nagula heliyo waxaan rajaynaynaa inaan noqono dad doorkooda ka soo baxa dalkoodana dhista muujiyo awoodii dhalinyaranimo ee la siiyo waa percentage-kii hore loo siiyey. annaga haddii aan ahan dhalinyarada gobolka Banaadir waa soo dhaweynaynaa waa ku faraxsannahay garabkoodaan nahay dhammaan xukuumadda iyadana waxaa loogu fadhiyaa in dhalinyarada qeylidooda way maqleen ballanqaadyo hore u fidiyeen inay ka dhabeeyaan ballanqaadyada dhalinyarada. annaga waxaan ugula tiriyaa in dhalinyaradii amniga ayaga qayb ka yihiin amni darada waddanka jira inay qayb ka yihiin dhalinyaro walba anaga dusha nagala saaraa laakiin kadib anaga waxaa diyaar u nahay inaa xukuumaddeena aan la shaqeyno ayagana shaqo abuur noo sameeyaan annaga inaa ciyaalo weerarnimada iyo tuugnimada iyo dilka iyo boobka iyo dhaca inaa iska dhaafna dil rabo hana la mashquuliyo shaqaha nagula mashquuliyo. waxaan qayb aan ka ahay ra-iisul wasaaraha tiimkii la kulmay ee nasiibka u yeeshay maadaama aysan wada qaadin 17 degmo aysan wada tegi karin laakiin tiimka hormuudka u ahay ee gudoomiye makraan la socday ee la kulmay ra-iisul wasaaraha ayaan ka mid ahay. markii xukuumad la dhisaayo baartiya kala leedahay laakiin waxaa anaga voiceka aan saarnay wasaaradda dhalinyarada iyo sportska in laga dhigo shakhsi dhalinyaro. waxaan halkan mahad ballaaran ugu soo jeedinaynaa xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamse Barre iyo golahiisa wasiirada insha Allah waxaan rajaynaynaa hadalkii maxay ahayd hoosh u taalo inay ilaa idinkiisa noogu qabtaan dhalinyarada gobolka Banaadirna ay soo fiiriyaan maadaama aan dhalinyarada gobolka Banaadir martina loo wada yahay waxaan rajaynaynaa xukuumad walba ama wasiir walbaba inuu fiiriyo dhalinyarada gobolka Banaadir. gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makaraan ayaa sheegay inay diyaar u yihiin la shaqeynta xukuumadda iyadoo wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya loo magacaabay wasiir dhalinyaro ah. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo runtii asagana ugu mahad celiyayno dadaalka iyo juhdiga oo galiyay iyo ra'iisul wasaare dhalinyaro ah inuu soo xulay golihiisa wasiirada ee dhalinyaro u badan yihiin taas waxaa dhigi karnaa waa tii dalka oo ku samata bixi lahay waa tii dalka ugu adeegi lahaa si cadaalad iyo sinaan iyo hufnaan ah. marka annagoo ka duuleyno doorka annaga aan leenahay oo ah doorka dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir waxaan mar walba diyaar u nahay inaan garab istaagno dowladdeena iyo xukuumadda iyo dhammaan hay'adaha kala duwan ee annaga si gaar ah noo quseeyo.